sidaa uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Jabuuti waxaynu taaganahay maanta xadka labada dal u dhaxeeya oo aanu ku gudoomayno deeq raashina oo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacbiga Jabuuti ay ugu deeqeen shacbiga Somaliland ee abaaruhu ay saameeyeen raashinkaasi iyo deeqdaasi marka hore waxaan qiraynaa inay Jabuuti tahay dalkii ugu horreeyay ee ka soo jawaabay baaqii abaaraha ee madaxweynaha Somaliland ee uu dunida kaga codsaday in lala soo gaadho deeq iyo kaalmo Jabuuti waxay noqotay oo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle noqday madaxweynihii iyo shacbigii ugu horreeyay ee ka soo jawaabay magaca madaxweynahana waanu ugu mahadnaqaynaa magaca shacbigana waanu ugu mahadnaqaynaa tirada gaadiidka iyo raashinka ee lala wareegay oo nagu wareejiyeenna waa kuwa muuqaalkan baa ka arkaysaan sidaa wasiirka arrimaha guduhu sheegayna waa 15,000 oo qoys raashin ku filan macnaheedu waxa weeye in badan oo ka mida dadkii abaartu ay saamaysay ayay gaari doonaan raashinkaasi madaxweynaha Jabuuti waxa uu codsaday isagoo dhageystay baaqii madaxweynaha Somaliland jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ee ahaa inay abaaruhu maanta ugu daran yihiin afarta gobol ee xeebaha ama xeebta waxa uu madaxweynaha Jabuuti jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle yidhi raashinku ha wada gaadho intaa madaxweynuhu uu noo tilmaamay ee abaaraha oo dhan sidaa awgeed guddiga abaaraha oo uu nala joogo guddoomiyihii iyo guddoomiyaha guddiga abaaraha ee qaranka oo madaxweyne ku-xigeenka ah oo talada aanu la wadaagnay dhammaantood iyo madaxweynaha sida aan idiin sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland magacooda waxaanu ugu mahadnaqaynaa mar kale iyo mar kaleba madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ninna intuu kuu jiro kuuma soo dhaafo Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu inoo sheegay intuu inoo jiro inuu dad inoogu xigo sidaa awgeed wuxuu noqday kii ugu horreeyay ee dhawaaqii baaqii ka soo jawaaba ilaahay ha u kadbo dadkeenna deeqdanina kuma filla abaaraha maanta ina haysta dunida kalena waxaanu ugu yeedhaynaa inay ku soo daydaan oo ay madaxweynaha Jabuuti ku daydaan oo ay caawimadaasi la soo gaadhaan dadka ay abaaruhu waxyeelaynayaan waxaa kaloo aanu u mahadnaqaynaa wasaaradda arrimaha bulshada ee jamhuuriyadda Jabuuti iyo taliyaha ciidanka madaxtooyada oo iyaguna si dareen leh uga qayb qaatay ama u muujiyay tacab badan in raashinkani halkan soo gaadho iyagoo fulinaya amarka madaxweynahooda Ismaaciil Cumar Geelle waxaanu u mahadnaqaynaa wasiirka arrimaha gudaha oo nagu wareejiyey ilaahayna ha idinka siiyo khayr jazaa'igeeda ilaahay ha siiyo Jabuuti iyo madaxweynahaba waxaa kaloo aanu u ducaynaynaa Jabuuti oo nala wadaagta ama jamhuuriyadda Jabuuti abaarahan waayo abaarahan iyo biyo la'aan iyagaba meelo badan bay ka jiraan iyagana caawinada ilaahay oo uga dhigo waynu u ducaynaynaa dalkeenna iyo dalka Jabuuti iyo inta ay abaartu saamaysay geeska Afrika oo dhan wassalaamu